ma waxaad rabtaan gabdhihii islaamka ahaa inaad u celisaan waxay ahaan jireen mise waxaad rabtaan reer galbeedkii wada ooyaya dhibka ay ku jiraan inaad gabdhaha islaamka gelisaan kallaa waxaasha intay nooshahay gabadh islaama oo koryeeli karta kitaabka islaamka ah oo diinteeda u dhidhiyi karta intay joogto waan diidnay intuu qof muslim oo nakhwale uu joogo waan diidnay intuu caalim rabbaani ah uu hadlayo geyigan saaran yahay ifkana ku nool yahay waan diidnay waxa aad la wareegaysaan wayakfiina kitaab allahi fakhra ودين الإسلام كرامة وعزة وحن وفي الإسلام مذانبا أيضا نقبلا وحكلنا مرمنا وحالات صلاة نبتين ورقلها كقرتين وان ديني أفبان لينهاي كربان لينهاي للابتع هدي العقل لدين هايستو والعقل أنتين لدين ليهاي كان ولا ليالو النوشي قاران بلدين قرينا ومادة الصوماليات بايدين قاران يسو أخلاق حمادا إيا وسخدا أد لو wareegaysaan haddii islaamnimada hanuun aad u jeedaan lacagta lidin ay soo idin ka bixineen haddii kale oo hayn wadamadii gaaladeed kala timaadeen qurunkan in caruurtanadii kala soo carareen dhul islaameed u soo celinayno kula laabta meeshaas ay faqri ka tahay haddii aad faan u aragtay inaad aragto dad isfuulfuulayo wasakha ama aad rabto gabadh qaawanood ku daawatood ku raaxaysato ama aad rabto ilmo luceel oo meelaha ku aragto dhul bay ka buuxaan dhul baa u xoraysan dhul bay sifiirka wax walba la joogaan dhul bay wasakh walba la joogaan ay darooyinka ku cunayaan billaahi calayk aad meeshaas billaahi calayk dhulka naga wasakhaynin ummadda islaamka dhawooda annaga ilmaha naga wasakhaynina hana wasakhaynina dad nadiif oo islaam aan nahay ma naqaana waxa aad sheegaysaan haddii uu dhaco bulshada laga helana axkaam baa noo dejisan kaasi waan dilaynaa oday annagu lacag qaatay oo gabadhiisa cirdigeeda in yaroo lacaga ku qaatay nama matalo sharciga xunkeed soo dhoodhoobtayna noogama aha qaadiga annaga waa alla subxaanahu watacaala kitaabkiisa kaasaana ku soconaynaa kaa dulmiga noo geystayna waxaan rajaynaynaa maalin uu kitaabka alla shaqeeyo inna looga qaado dulmigaasi uu noo geystay waxaa kaleetoon u baaqayaa gabadh walba oo muslimada diintaada baro yaa lagu waramin warbeenon jirin yaa dhegtaada lagu shubin wax kula rabo wanaagoon diinta islaamkii ilaahaygi ku umay aan ahayn ma jirto bara diintaada ku dheg oo waxaad ku qabsataa gacantaada midigta ah yaan lagaa waswaasinin oo shayaadiintu hadalka markay ku celceliyaan marka dambeeta hal buu noqdaa wax lala qabsada ayuu noqdaa yaana weligaa lagaa dhaawdhicinin wasakhda ay la wareegayaan kitaabkaaga iyo diintaada kuma dulmiyin dhaqanka yar ee soomaaliyeed ee khaldamayna yowman maa waxaan alla subxaanahu watacaala ka rajaynaynaa inay soo noqdaan oo dulmigaasi ay ummaddii bulshada ku dhex jirta in laga qabto soomaali boqolkiiba boqol waa islaam soomaali boqolkiiba boqol waa dad ka dhiidhiyo diintooda iyo nafta gabdhahooda in loo dhaco laakiin wixii waxbaa soo gudbayo wax yaroo aynan u malaynaynin bidaarisima kugu gashay bay soomaali tiraahdaa aynan u malaynaynin inay dhib u keeni doonto oy si fudud ku aqbaleen ayaa maanta dhibabkiisi midba midka kale maalinta midba mid ka xun maalinta ka dambe ka soo saarayo maalinba maalinta ka dambaysa midkii mid ka xun soo saarayo ilaa hadda ay gaadhay inay alla asmaadiisa iyo sifaadkiisa ay ku dhaarato gabadh ayadoo garanaynin waxa ay u dhaaranayso rabbulciza jalla jalaaluhu hadday ka xishoonayso magaciisa kuma ay dhaarateen ayadoo wasakh wadato rijsi iyo xumo wadato هذا دب أولولين وحيليه وحبا التعديلات كسمينين أي تعديل هذا محبة بدل وصمين وحردان بقولهم بوهاي ما لبدا طورو برشد الصوماليات وحي لقب ستيدوه ذا إن لدهماني والبا قبل لو دعت يا جدكودا محاكا جرارنتا هدي وحكا جرنا وأرما أي مال قرينيان oo ilaa caga ku bixinayaan hay'adaha ka dhax shaqeeya wadankeena
haddii tale la iga yeelay ummadda Soomaaliyeed fariin baan bartan uga diraya risaalahan uga faa'iideysanay maanta muxaadaradeena ummad islaameen nahay hay'ad kasto magac kasto oo hay'ad ku imaato wadanka dhagaxa lagaga soo saaro buugoodii warqadahoodana ha la jeexjeexo لأنه maamul goboleedaha wadanka ka jira qaybo kamida markay dabagaleen kufsiyaasha qaar ka dhacay wadanka waa nacbahay inaan afafkayga ku sheego waxyaabahaas oo kale waxaa fangareeyo hay'ado